waxaa jira qaladaad aad u fara badan oo ay sameeyaan dadka xisaabaadka shirkadaha ka shaqeeya. qaladaadkaas waxaa laga yaabaa asoo og inuu dhaco amba asoona warka heenin in qaladkii uu sameeyo. xilliyadii hore intii barnaamijyada casriga kombiyuutarada aysan soo bixin, shirkadaha waxaa loogu shaqeey jiray qaab gacan ahaan, waxaa loo yaqaanaa manual accounting. shirkadda waxaa xisaabaadkeeda lagu hayay buwaag waaweyn, buwaagtaas ayaa lagu shaqeynayay. waxaa aad u badnaa in qaladaad badan uu sameeyo qofka xisaabaadka ka shaqeynayo, sababtoo ah ma haysto barnaamijyada casriga iyo kombiyuutaradan wax walba sahlayo. waxa keliya haysta ayaa waxay ahayd calculatorna waa ognahayo wuxuu sameyn kara, waxay noqonaysaa in wax isku daraan wax kala jaro. marka waxaa iska badneed in qalad badan xisaabtii xaggeeda ay ka dhacdhacaan. markii barnaamijyada casriga lasoo saaray oo horumar badanna lagu soo sameeyey, waxaa lagu guuleystay qaladaadkaas xisaabaadka galaya qaybo ka mid ah in aad loo yareeyo. bal maanta waxaan rabaa in aan ku tuso 2 qalad oo laga yaabo haddii aad isticmaali lahayd nidaamkan gacanta inaad samaysid, laakiin barnaamijyada markaa isticmaalaysid aysan suurtagal ahaynba qaladkaas inuu dhaco. waxaa imaanayaa menuga loo yaqaana company menu. intaa wax ka dambeeyna waxa uu soo gudbayaa general journalka. barnaamijka raba inaan kugu tuso waxaa loo yaqaanaa quickbooks, laakiin barnaamijyadoo dhan way ka wada saman yihiin. haddii aad isticmaalaysa dhaagiisiga, taaliga, sage 50ga amba bishtriga iyo borogaraamadan kale oo casriga amba ha ku shaqeeyaan qaab offline amba qaab online ha ku shaqeeyaan, dhammaantood way ka wada saman yihiin. tusaale ahaan waxaa la bixiyey boona lacag bixina ayaa waxaa lagu qoray lacag kiro $100 ayaa la bixiyay. bal taariikhda maanta aan ka dhigo, maanta bisha waxay maraysaa February 11 2021. boonada nambarkeeda ayaan ku qorayaa. dhacdadan waxay noqonaysaa inay saameyso 2 account. qaybta hoose akoonada loogu talagalay ayaan soo qabanayaa. akoonka ugu horeeya wuxuu noqonayaa rent expense, lacagtiisa waxaan leenahay $100 ayaan ka dhiganaa dhinaca dhibitka. kadibna waxaan meeshan faahfaahin yar ayaan ku qorayaa. kiro ayaan leeyahay, tab ayaan taabanaya. markii aan imaado leenka ku xigo oo ah akoonkii lacagtan ay ka bixisay, waxaan soo qabanayaa checking account. dhibitkayga automatically markii 100 aan ku qoray, qaybta creditka markii aan soo qabtay checking account, barnaamijkan quickbooks wuxuu ku fiican yahay, wuxuu leeyahay qayb loo yaqaan autocomplete amba autofill oo ah creditkii iyo memogii asaga ayaa ku sii buuxinaya, uu sii qiyaasaya. haddii raalli aad ku noqotid oo checking accountka lacagtan aad ka goynaysa 100, sidaas ayaa ku dhaafaysaa. faahfaahinta memogan asaga ayaa ku sii buuxinayo. dabcan meel yar oo laga bedelan ugu jira. debit credit qaybta hoose hadaa fiirisid totalada debitkaaga waa $100 wax sentiya ma wato, creditkana waa $100 wax sentiya ma wato. nidaamka hore oo manualka markii la isticmaalayay waxaa macquul ah in debitka iyo creditka lacagaha aad ku qortid inay kala bataan. tusaale ahaan in dhinacan creditka uu ka raaco 1 senti amba mararka qaarkood 1 beni ayaa ka raaci karo, wax ka yar senti qururuc ayuu noqonayaa. markii gacanta isticmaalaysid, markii intaas aad gelisid, automatically waxaa laga yaabaa marka hore in aad kasii socotid, laakiin programka wuxuu u baahan yahay dhacdada aad gelisay inaad save garaysid. programada kalena way ka wada saman yihiin. dhacdo walba aad gelisid waa inaad save aad dhahdaa. haddii aan taabto marka save and new, wuxuu soo qabanayaa daaqad yaroo waanine digniin ayaa lagu siinaya. war saaxiibow joog, saan macquul maahane, maxaa samaynaysaa? meeshan ayuu kugu faahfaahinayaa qaladka aad samaysay iyo qaabka u saxileed. transactionka aad soo gelisay maahan mid debit iyo creditkiisa amba labadiisa dhinac ay isla eg yihiin. hoos fiiri, debitkaaga waa $100, creditkaagana waa $100 iyo 1 beni. waa ina hubisaa in totalada debit iyo creditka kolomyadani in ay isla eg yihiin. taas macnaheedu waxa waaye lacagta debitka gelisa lacag lamid ah waa ina creditka aad gelisaa. marka waxaa ku qasbantahay inaad saxdid, haddii kale dhacdadan ma la save garay karo. qaladaadka qaababka inta badan ay u imaadaa waxay noqonaysaa rentiga waxaa laga yaabaa 196 inaad gelisid, sidoo kalena dhinaca kale checking accountkana 169 inaad gelisid. 2 nambar ayaa isweydaarisay. midka hore waxaa ka dhigtay 196, midka dambena waxaa ka dhigtay 169. isweydaarintaas haddii aad samaysid oo aad save and close aad taabatid, maxaa dhacaya? wuxuu ku leeyahay debit creditkaaga islama eko. marka waxaa ku qasban tahay debit creditkaaga inaad isla ekaysiisid. markii debit creditkaaga aad isla ekaysiisid, markaas ayaa save garay kartaa. waa 196 kadibna save and close ayaa taaban kartaa. taas waa qalad
oo barnaamijyada casriga ay qaban karaan waa haddii aad geshid oo ah lacagaha dibida kreditka ku qoraysid haddii ay isla ekaa waayaan ayuu kaa saxyaa marka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagtan inay saameyn ku yeelanayso wax ka badan 2 akoon checking accountka inaad ka qaadaysid $100 sidoo kalena cashka inaad ka qaadaysid $96 marka meeshii $96 ayaa waxaa ka dhigtay $69 weli waxaa taagan tahay in dibida kreditkaaga uusan isla ekeen haddii aad isku daydid inaad save garaysid wuxuu ku leeyahay macquul maahan dhacdadan dibida kreditkaaga isla ma eko marka waxaa ku qasban tahay in aad isla ekeysiisid qaabka kaliya iskula ekeysiin kartid waxay noqonaysaa in aad fiirisid dhibitkaaga lacagta ku qoran kadibna lacag lamid ah kreditka aad ku qortid qaabkaas ayay waxay noqonaysaa in aad iskula ekeysiisid kadibna haddii aan taabano dhibida kreditkana hadda wuu isla egyahay save and new haddaan taabano dhacdadaas wuu save garaynayaa si caadi ayuu u aqbalayaa taas mid ayay noqonaysaa waxaan rabaa in aan qaladka labaad aan ku tuso isla waxaan soo qabanayaa rent expensiga kadibna waxaan meeshan ku qorayaa kiro meeshii la rabay akoonkii labaad inaan soo qabto oo ah checking accountka maba soo qabanayba waa ka soconaya lacagtii waa soo geliyay faahfaahintiina meeshan waa ku qoray meesha waxaa ka maqan akoon ayaa ka maqan amba ahaado dhinaca dhibitka amba dhinaca kreditka mid ka mid ah ayaa iga maqan waxaa isku dayay inaan save gareeyo save and close muxuu leeyahay journalka transactionka aad gelinaysid wuxuu u baahan yahay in line walba aad soo gelisid akoon lacagtana aad ku qortid haddii kala save garayn ma jirayso marka waa qalad labaad oo laga yaabaa nidaamkan manualka markaa isticmaalaysa daaqada journalka dhacdada aad gelinaysid in aadan akoonkii aadan qorin ay saameynta ay ku yeelanayso dhacdadan amba mid ka mid ah amba labadooda aadan qorin oo lacagii le aad iska qoratid marka meeshaas oo kale way iska fududaanaysaa qaladkaas inuu sii socdo laakiin markii laga hadlayo barnaamijyadan casriga ah qaladkaasna wuxuu noqonayaa qalad uu qabanayo oo ka hortagayo marka waxaa ku qasbantahay meeshaan inaad soo gelisid checking account amba akoonka kale ee lacagta laga bixinayay kadibna waa save garay kartaa marka tan waxay noqonaysaa laba qalad oo ah qaladaadka inta badan la sameeyo laakiin programmada ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan qalad noocaas inuu dhaco haddii aadan xarunta baafo war badan ka helin xarunta baafo waa xarun bixiso koorsooyin iyo adeegyo kale haddii aan koorsooyinka ku hormarno koorsooyinka waxaan ku bixinaa qaab kalaas ahaane haddii xamraa joogto waxaan ugu imaanaysaa xarunteena ku taala suuq bakaar masaajkan abu hureyr agtiisa daba ku yaala loo yaqaana bacda balaasa biyaanada labaad ayaan degannahay amba nambarka ayaa naga soo wicisa shaashada hortaada ka muuqdo haddii aadan xamar joogin oo wadamada dariska amba gobolada soomaaliya meel ka mid a aad joogtid oo qad internetna aad heli kartid waxaa jira nidaam online ah koorsooyinka aan ku bixino si faahfaahin dheeri lagu siiyo whatsappka shaashada hortaada ka muuqdo ayaa nagala soo xiriiraysaa aad u mahadsantahay